65 sano kadib Soomaaliya ma xorba. دليل كان بالقولي إن أساسنا إن حرنا أو سياسة حر عننا أو دقالة حر عننا أو عيدا كحر عننا وقدرت حتى عيدا ما يلا سوات يا دوينوا وضدك دقن مي هذه عدو جا مع عيدا كودي ساي هذه taliyaha ciidamada Talyaaniga ee dalka Soomaaliya gaashaanle sare Giuseppe Fabri oo guddoonsiiyay taliye ku-xigeenka labaad ee ciidanka asluubta Soomaaliya oo goobta ka hadlay ayaa tilmaamay in ay sii wadi doonaan kaalmooyinka noocan ah. Per essere qui, per aver accettato il nostro invito, per ricevere questo equipaggiamento. maanta waxa ay ku beegan tahay 26 Juun oo ah markii madaxbannaanida ay qaateen gobollada waqooyi ee Soomaaliya haddana loo yaqaan Somaliland. dadka intooda badan waxa ay maanta u tahay maalin farxadeed iyo damaashaad sababtoo ah waxaan madaxbannaani ka helnay cadow gumayste ah oo muddo badan haystay halka qayb ka mid ah dadka ay u arkaan madaxbannaanida la sheegayo madaxbannaani magacuyaal ah loona baahan yahay tixgelin baahsan hadalka ah madaxbannaani magacuyaal si aan iskula fahanno waa inaan eegnaa bal waxa ay kala yihiin madaxbannaanida iyo xornimadu. waxaa jirta murti dhahaysa inaad xor noqotid waxa ka horreysa inaad madax bannaan tahay laakiin qof walba madax bannaan ma aha mid xora. madaxbannaanidu waa magaalo gobol ama dal ay dad ku nool yihiin oo ay dadkiisu helaan gobonnimo iyo ismaamul oo ayagu leeyihiin. xorriyadduna waa in qofku uu dooran karo waddada uu rabo inuu qaado noloshiisa iyadoo aan la xadideen ama aan la carqaladaynin. marka la eego qeexidda kor ku xusan waxaa laga maarmaan ah inaan dib u milicsanno wixii aan qaadannay ama aan ka helnay gumaystaha. ma madaxbannaani bay ahayd mise xorriyad? waxaa biyo kama dhibcaan ah inay ahayd madaxbannaani liidata waayo keliya waxaan helnay madaxbannaani siyaasadeed oo qallalan mana aanaan helin madaxbannaani fikir aqoon iyo mid dhaqaale. waxaan fikirka iyo aqoonta iyo dhaqaale ahaanba ku tiirsannahay gumaystihii aan erinay. waxaa aragtidaasi maragba doonto u ah gabagii dayax ee uu tiriyey abwaan Axmed Ismaaciil Diiriye. abwaanku waxa uu gabagiisa beeyadka ugu dambeeya ku leeyahay sida tan: isma doorin gaalkaan diriyo daarta kii galaye dusha midabka soomaalinimaa dugul ka moodaaye misna laguma diirsado qalbigu waa dirkii kale leh meeshaan dad aan urusho darar ka eegayay iyaduba waa darxuma ii hadhee dacar miyaan leefay. waxay ila tahay in gabwaanku uu gabagiisa ku cabirayey niyadjabkii ku dhacay bulshada Soomaaliyeed madaxbannaanida kadib. niyadjabkaasi oo asalkiisu ahaa inaysan helin xorriyad iyo caanihii laga maalayay Hashim Maandeeq. caanahaasi oo ah xuquuqda aasaasiga ah ee qofka sida xorriyadda hadalka waxbarashada iyo aqoonta iyo caafimaadka iyo wixii la mida. waddamo badan oo innagu aan ka mid nahay markay ay heleen madaxbannaanida ma aysan ku tillaabsan inay helaan xorriyad. waxaa intaasi sii dheer inaan xitaa luminay madaxbannaanidii muddada aan ku jirnay dagaalka sokeeye awgiis oo xataa ay gaartay inaanan helin awood aan isku maamulno. haddii xaalku sidaas yahay maxaan u dabaaldegaynaa mise waa ka nasiib ka nasaar?